رسول كان لدى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج والله قاضي جبريل ميكائيل باقاضي وحلقيي مالح يقول مريا أياه وحي أتقين دد رقئي هوين له عدي النحاس نحاس مار عديه هو مار آد بيوف بدنيهين ونار ويهل عايان مركاسا ددك وقاقاوينيهين ورقئي الدمر مركاسي عديه داد ديرا ayaa waxay isaga jixjeexayaan laabta ay isaga jixjeexayaan iyo wajiyada yaani iyagiiba isjeexjeexaya ishibay bixinayaan oo dhagtibay gooynayaan oo sankibay gooynayaan oo bishimihii sidoo kale laabti sidaasay isu markiiba haddana waa la sameeynaya sidaasay ku jiraan waa manzar fadiica oo aan la eegi karin rasuulka sallallahu alayhi wasallam yaa abi jibriil wuxuu yiri kuwan waa maxay warkuwan arxam darada isu cunaya waa maxay ma aha qofka kale ma cunaya ogow iyagiiba isgoogoynaya oo is cunaya oo is maaragtaayay fiiqanaya waa maxay dadkan markaas wuxuu yiri هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم كوان أداركيس مانتا وكوي أدونك عوني جري هيلبك دادك dhurwaayadii bashariga ah ee joogay adduunka weeyaan kuwan raggan iyo dumarkan aad arkaysid ee dadka xaman jiray oo cirdigooda ka baxsan laga baxsan waayay oo afkooda eedab u yeeli waayay carabkooda qaban waayay ka adkaan waayay kuwan waa kuwa xadiisku waa xadiis saxiixa aayadiina waad arkayseen waxa hilibka la cunaya ee la istixjaaxay ha u malaynina aakhiro ma aha aakhiro waa qabriga waa barzakh weeyaan maanta gabadha wax xamanaysaa ee aanan is ogeyn ee dadka cunaysa ee macallimiinta cunaysa culimada cunaysa dariska cunaysa ee aanan ogeyn haddii ay nafta ka baxdo iyadoo aanan ilaahay u soo noqon u toobad keenin ka adkaanin carabkeeda haddii ay dhimato isla saacada iyada ah ayaa waxa bilaabanaya cadaabkii inta loo yeelo bahalaha nuxaasta cidiyaha ayay isjarjaraysaa oo is cunaysaa oo is fiiqanaysaa وآيات وأحاديث صحيحة أين رمينه أين اعتقادنه أين إلالنه عرب كينا ولا لا أين إلالنه أبو بكر الصديق واتقرن إنسان إيا عمر أيا وحي سفر لقلن رسولك صلى الله عليه وسلم ولا سعودي راشينك يسوقدنا وحا هيا رسولك هيا أو أوضى صحابة عمر يا أبا بكر أيا قيس أبحي ولا دقي معناها rasuulkii xaasaskii marka la socday way degeen sallallahu alayhi wasallam marka dadku waa la kala degay Abu Bakar iyo Umar dadkii la socday waxba la karsaday bariiskii iyo waxba de maaragtay cambuuladii waxba la kariyay suuga loo baahan yahay suugada yaa haya xabiibka u haya sallallahu alayhi wasallam mar ay dhaxda soo socdeen ayaa waxay lahaayeen Abu Bakar iyo Umar ridwaanullaahi calayhim waxay lahaayeen khaadim خادمك وهرد بدنيها مرك يعني انت بدن ما اديو حوا ان ير بعد كما غناتيد هودو كبخايا مركي ايا مدكودا وحو يري ورنيو نينكي اوي ونينكان هردده بدن wax kale ma la raacinin والله يري waxa la yirniyo orada u tago rasuulku waxa tiraahdaa suugadii Umar iyo Abu Bakar suugay rabaan wuxuu yiri waxaad ku dhahdaa Abu Bakar iyo Umar bariiska aad karsateen uu idin suugaysan yahay sida ku cuna hilba idin saaran suuga idin saaran sida ku cuna ninkii soo farmarno soo noqday war aawi suugada aanu ka suugaynay waxa la idin yiri hilibka bariiska waa idin suugaysan yahay yaa hilba idin saaran waslada idin saaran cuna waa naxeen bariisku waa cadiha waa garcada way kaceen markiiba iyagoo ordaya inay dambi galeen ayay ogaadeen waxay u tageen rasuulka sallallahu alayhi wasallam dambigaagii hore ikii dambi Allah dhaafee maxaan galabsanay wuxuu yiri waxaad cunteen oo aad bariiska ku cunaysaan hilibka walaalkiin waa hadalkii yara ay dhahayeen Allah hurda weyna ilaahay baan kugu dhaariyay imisaan khaadimiinta ama aanu caynaa aanu gadaashooda ka hadalnaa aanu asxaabti jiiraanka aanu gadaashooda ka hadalnaa ama aan joogno masaajid ama meel kale aan joogno
maalin walba cuntadan maadiga aynu cunno waxaa inoo dheer ogaada cunooyin kala inoo dheer hilbaha walaalaheena ayaanu cunnaa imisa sanaanu soo cunaynay 5 sano 6 sano qalinka wuxuu nagu bilowday 15 sano maalinkii aanu gaarnay maalinka ilaa iyo maanta laga yaabaa inaanu cunayno war haddaan dhimana maxaa noo yaala ila allahi marjicuna war ilaahay baanu u noqonaynaa maxaa inoo yaala walaalayaal carabkan sii waday isagoo ka sii sheekaynaya rasuulka markii xaalad weyn uu gaarsiiyey ayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa Mucaad wuxuu yiri rasuul Allah miyaa la inoo qabanaya wax walba aanu ku hadalno afka waxa ka soo baxaya miyaa la inoo qabanaya wuxuu yiri thaqilatka ummuka ya Mucaad وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم dadka ma waxa waji ugu tuura cadaabka ma wax kala geeyay ilaa waxa carabiyadu gooyaan ma ahane waxa aanu ku hadlaynaa sidaan ku bilaabay malaa'ig baa qaadayso walaalayaal waliba intaas oo saacada laga yaabaa in lagu sugo hal wanaag hadii aad sameeysid hadal oo fiican aad ku hadashid waxa lagaaga dhigayaa 10 iyo wixii ka badan 10 xasanaad iyo wax ka badan hadii xumaana sameeysid hal xab kaliya lagu qoraya oo waliba in muddah lagu sugayaa sida culimada qaar ay leeyihiin ilaa iyo 6 saac ayaa lagu sugayaa bal inaad ka soo laabatid wanaaga miya markiiba qalinka lagu jiidaaya aynu iska ilaalino walaalayaal aynu iska ilaalino walaalaheena hilibkooda in aanu cunno maalin walba aynu iska ilaalino sida aynu u nacayna iyadoo dhimatay horteena taala inaan baqtiga meydka inaan cunno aynu uga fogaano marka aanu walaalayaal ay nool yihiin